qawaariidtu muddo dheer kadib waxa ay wajahayaan jabkii ugu weynaa ciidanka qaranka iyo geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa magaalooyin badan ka xoreeyay qawaariidta. halganka xoreynta waa mid wali sii socda waxaana ballanku uu yahay in aan la hakan ilaa tuulada ugu dambeysa laga ciribtiro qawaariidta. inkastoo hadda ciidanka qaranka iyo geesiyaasha naftooda u horay xorriyadda ay guulo ka gaareen gulufka socda, haddana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dhawaan dalka ay imaan doonaan ciidamada tababarka ku dhameystay dalka Eritrea. insha Allah ta'ala dhalinyarada Eritrea jirta mar dhow way imaanayaan. bisha aan ku jirno December intayna dhammaanay way soo bilaabanayaan, January way soo dhameystirmi doonaan ilaahay idinkiisa hadii alla yiraahdo. waa diyaar arintaasi markaan dib u dhac dambe ilaahay idinkiis ma rajeynayno. ciidamadan sida gaarka ah loo carbiyay ayaa waxa ay dalka ku soo laabanayaan iyadoo ku dhawaad 50 magaalo laga xoreeyay qawaariidta Al-Shabaab. sidoo kalena ciidanka xoogga dalka ay haatan qorsheynayaan inay qawaariidta ka saaraan magaalooyin muhiim ah. haddaba maxay ka dhigan tahay in ciidankan qaba tababarka sare ay dalka ku soo laabtaan xilligan? waxaan su'aashaasi weydiinay Axmed Carab Maxamed oo ah falanqeeya arrimaha ammaanka. ciidamadan horta ciidamadii Soomaaliya loo tababaray waxaan isleeyahay waa ciidamadii ugu habboonaa oo xilligoodu yimid, waliba waa ciidamadii ugu tirada badnaay oo hal mar dibadda lagu soo tababaraa la dhihi karaa. xilliga ay ku soo aadeenna waa xilligii loogu baahi badnaay oo hadda aan horeba u soo sheegnay waa xilligii loogu baahida badnaay oo nimankan khawaarijta ah ay marayeen xilli gabangaba ah. waxaan isleeyahay ciidamadaas aadka iyo aadka tababarka kala duwan qaba markay dalka dib ugu soo laabtaan, waan isleeyahay waa dabargoyntii nimankan khawaarijta meeshii ugu dambeysay insha Allah hadii la yiraahdo. soo laabashada ciidanka muddada la sugayay ee lagu soo tababaray wadanka Eritrea iyo guulaha isdaba joogga ah ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ay ka soo hooyeen qawaariidta ayaa waxa ka dareen celiyay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed. ugu waa dhawahay magacayga waa Daawud Cabdulla Raage. aad baan ugu faraxsanahay hadalkaas wanaagsan ee ka soo yeeray madaxweynaheena, taasoo wiilal Soomaaliyeed oo baahiyo kala duwan ay u qabaan hooyooyinka ama waalidiinka ama guud ahaan dalkaba ay baahi u qabaan maanta in dalka dib ugu soo laabtaan. waan ku faraxsanahay. waxaan leeyahay mar walba Soomaaliya ha noolaato, horumar iyo waxaan rajaynayaa barwaaqo insha Allah. hadalka madaxweynuhu iyo ciidamada Soomaaliyeed oo Eritrea laga soo celinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. madaxweynuhu waa nin raga, ilaahay baa talada waafajiyay, ilaahay baa dariiqa fiican ku hagaajiyay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ha noolaado madaxweynuhu. in ciidankii 5 sano iyo 6 sano ku dhawaad maqnaa in la soo celiyo maamooyinkii oo banaanbaxay oo wax kasta qabanay in ciidamada maanta la soo celiyo aad u fiican tahay. marka madaxweynaha Soomaaliya waa ku maasay inuu dhaho ciidamada in la soo celina. marka ciidamadaasna waa ciidankii ugu dalka ugu fiicnaa waaye. marka waxaa laga rabaa madaxweynaha Soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan oo dalka soo celiyo. waalidiintana waa inay madaxweynaha ku farxaan, waalidiinta ka arkaan. runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii aan ka rabnay wax ka dheeriya ayuu samaynayaa, haddoona isbedeli doonin. waana taageersannahay, waa ugu mahad celinaynaa shaqada fiican oo qaranka Soomaaliyeed oo u haayo. madaxweynuhu khibrad ayuu ka qaataan dhihi karnaa muddadii hore oo madaxweynaha ahaa. soo noqodkiisa labaadna waan ku faraxnay. arrinta uu sameeyey inuu dib u soo celiyo ciidamada Eritrea waa arrin guule. waa ciidamo la waayey muddo waxay maqnaayeen ku dhawaad 4 sano ah. inay nool yihiin iyo in kale sakigaa ka qabnay, laakiin maanta ummadda Soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay. hadday u imaanayaan wiilal yaryar oo muddo 4 sano ee tababar ku qaadanaya waddan ajnabi, waa ciidan tayaasanaan dhihi karnaa. waa ciidan halkanka socda maanta wax badan ka tari karo. waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. ilaahayna waxaan ka baryayaa dalkan Soomaaliya sida uu maanta yahay si ka fiican inuu alla ka dhigo. madaxweynaha Soomaaliyana 100% u mahad celinaynaa. saqaf fiican ayuu dalkan iyo dadkan u qabtay. hadda isbedelka lagu sheegayna intaas uu ku fiican yahay. dadka Soomaaliyeed oo muddo ka badan 15 sano wajahayay arxan darrada qawaariidta
ayaa hadda doonaya in ay ku noolaadaan nabad iyo cabsi la'aan. Sucaad Cabdi Casiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho.